وحنا هذا كان وحوي برنامج كان وحنا ضد قبيلة وحنا ضد أشرافة وحنا ضد علماء وحنا تردحات أمة الصومالية صومالي مركز اسكود الدي ضد بنان كتشوانا مرحب بين لنا صادرت المركز على مدحونا يدولد جمهورية صومالنا وحنا قاعدنا عبد المنان يوسف محمد عبد الشاه أحمد قوري من الله يروح هنا يا شرا صادرت وحنا قاعدنا مدحونا موسى بيحي عبدي wiilkaas arintiisa in xuriyadiisa la siiyo shaqadiisana oo maartay dalka loo madaxbanay wiilka xiran ee hay'adaha sharciga ee gacanta ku hayaan wiilka inaad noo soo dayso baan ka codsanaynaa annagoo lagu sheegay qabiilka aanay Soomaali markii qolo la qaybiyo waxaanay awlaadii Nabi Maxamed Fariisi baan nahay awlaadii waxaanay Faadimo iyo Sayd Cali ay dhaleen nabiga faqalayna kitaabullah iyo waalu beydkii baan nahay annaga curade waxaan ka codsanaynaa xukuumadda iyo dalka aad joogtaba Ilaahay inuu nabad iyo ma garanaysa barwaaqo geliyo dadka uu la noolaana waa dadka ka hadlahayo madaxweynaha inuu ogeyn baa laga yaabaa laakiin hadda waxaan baaq ugu diraynaa madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa ruux la arko oo ibn aadan oo Ilaahay uu sameeyay sharaf buu jecel yahay iyo cizi madaxweynahana midka cadaaladeed deegaanka uu xukumo xadgudub iyo dhibaato ayna ka imaanin weeyaan waxaan rabaa inaan ka hadlo hadii Ilaahay yiraahdo ninka la yiraahdo Cabdilmanaan Yuusuf Cabdi Sheekh Ahmed Guure waxaan kala hadlina waxa weeyaan jamhuuriyad Soomaaliland iyo shacab iyo madaxweynaba ayagoo leh shacab iyo madaxweynaba ayagoo oo la siyama dadka shacabka aad ugu mahadnaqayno maxaa yeelay in alla intay dadaali kareen way ka dadaaleen wiilkaas inuu hadii ay xorriyadiisa helo waana ku mahadinaynaa marka hadii ay yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkoodaba aan salaanta soo gaarsiinay ka bacdi gaar ahaan waxaan codsanaynaa oo si karaamo iyo sharaf leh oo hadii ay yiraahdo sidoo sheegayba Sheekh Cabdi Xakiin aanan hadii ay yiraahdo baab iyo xumaan